dadkan ganacsatada oo Puntland ka ganacsanaya waa dad Hindiya waa dad aan dhinac ahayn waa dad aan qofka bini aadanka runta u sheegi karin dawladda waxa la rabaa waxaad ku dhaliilayso inaad warkeeda u cadayso laakiin haddaad meelaha ka xamato dee barwaaqay ka qaadaysaa dani waxaan leeyahay Puntland iyay kugu dumin sida aad hadda u wado oo aad u shaqaynayso waa kugu dumaysaa xasan baa soo weeraray xasan baa saayeenay xasan baa filaan xasan baa kaaga heelanay oo qabiilaan kaaga heelanay oo reeraan kaaga heelanay oo qabiil kugu raacnay qabiil meel lagu tago taa xasan waa ku qaldanaayo dariiqu dooni maayo ciidamo meel la soo taagtaagay iyo Puntland buu burburinaya iyo taa in la iska celiyaa waa waajib laakiin dani waxaan leeyahay daniyow dekedana tiri bibi wall baa iska leh shirkad maafiya baa iska leh oo maalin walba lacag baan ku kordhinaya wallahi baan weysan cid ku kordhinayn cidina ku siinay dad baa daacish noqday iyo dad baa ka noqday iyo dadka lacagta daacish qaadi jiray haddaad doonayso inaad qaado buurta ka baxo bambooyin qaado dadka la dhac bambooyin intaa qaadato qaabkay u leyn jireen iyagu dadka u lay haddaad rabto inaad lacagta qaado bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dhammaan dunida daafaheeda ummadda iga daawanaysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maantay waxaan rabaa inaan arrimo yar oo ka dhacaya Puntland arrimo yar maaha xoogaa dhibaato ah oo ka dhacday Puntland inaan ka hadlo Puntland waxay ahayd hooyadii federaalka Puntland waxay ahayd hooyadii Soomaaliya Puntland waxay ahayd meesh Soomaaliya isku xidhay waxaa moodaa sanadahan dambeeto in bilaayo haysato oo niyow anaa iri iyo waxyaala noocaas ay ku wareegayso Puntland dekedeeda waxaa dhisay in siyaad bare ilaahay jannada ha ka waraabiyo godkiisa ilaahay ha u qaboojiyo madaxweynaha xaq ah oo Soomaaliya xalaasha ah oo aan cidi ka damayn baa dekeda iyo laamiga iyo korontadaba geeyey ninkii dekeda geeyey oo loo dhisay niman annaga oo maxaan cunaaya oo iska ducufo ah waxay soo kaxayeen shirkadda yaraada bibi wall dekedaasaa la keenay waxaa la yidhi waxay leedahay boor charge bay qaadanaysaa lacag baa laga qaatay jeebadaha lagu shubtay kuraas baa lagu doontay niyow dalka haddii bele iibsanayso oo nacamlo ah oo aan jirin oo macno lahayn ay isu dhaafto waa dhibaato dekedaa hore baan uga hadalay odayaal badan oo Soomaaliyeed iyo anigoo hore baan uga wada hadalay qayb baa lagu xirxiray qayb baa jeel ku galay qayb baa u curyaamay qayb baa dhifaankii iyo jeelkii ku dhintay dadkan ganacsatada oo Puntland ka ganacsanaya waa dad Hindiya waa dad aan dhinac ahayn waa dad aan qofka bini aadanka runta u sheegi karin dawladda waxa la rabaa waxaad ku dhaliilayso inaad warkeeda u cadayso laakiin haddaad meelaha ka xamato dee barwaaqay ka qaadaysaa dani waxaan leeyahay Puntland iyay kugu dumin sida aad hadda u wado oo aad u shaqaynayso waa kugu dumaysaa xasan baa soo weeraray xasan baa saayeenay xasan baa filaan xasan baa kaaga heelanay oo qabiilaan kaaga heelanay oo reeraan kaaga heelanay oo qabiil kugu raacnay qabiil meel lagu tago taa xasan waa ku qaldanaayo dariiqu dooni maayo ciidamo meel la soo taagtaagay iyo Puntland buu burburinaya iyo taa in la iska celiyaa waa waajib laakiin dani waxaan leeyahay daniyow dekedana tiri bibi wall baa iska leh shirkad maafiya baa iska leh oo maalin walba lacag baan ku kordhinaya wallahi baan weysan cid ku kordhinayn cidina ku siinay dad baa daacish noqday iyo dad baa ka noqday iyo dadka lacagta daacish qaadi jiray haddaad doonayso inaad qaado buurta ka baxo bambooyin qaado dadka la dhac bambooyin intaa qaadato qaabkay u leyn jireen iyagu dadka u lay haddaad rabto inaad lacagta qaado haddii kale nin dowlada oo system leh oo nidaam leh oo kala dambeyn leh oo shacabkiisa la tashaday oo qiimo leh noqo ka bax waxa kana ku jidho bibi wall wallahi bangad iyo torrey baa laga saaraya waddanka waxay noo qabatay ma leh 10 sano 12 sano dekedda haysataa markab kuma soo xiran karo wax la ballaariyay ma jiraan
wax loo qabtay dadkaa ma jiraan. dadka shacabkaa dekedan iyagaa leh. wiilka hawiye oo xamar ka yimi baa leh, kan kismaayo ka yimi baa leh, kan reer puntlandaa leh, kan kiilka shanaad ka yimi baa leh. dadka ka hortag haddaadan qancin karayn. qorshayaal baa nina wadwadaan iyo waxaana ku hadlayso cidina kaa dhegaysan mayso. ilaa garowe, ilaa gaalkacayo, ilaa boosaasaa qufulan. hal dukaan oo dadkii shaah ka iibsadaan baa laleeyahay. dadkii baa suuxay, waxba kaama gelin. habartaada iyo wiilkaaga iyo inadeerkaa iyo baadhul baa haddaad taqaan. reer geesood baa dadka ka taqaan. ka hortag dadka, ka hortag. magacaa baayi madaxana ma noqon kadho, waxna isuba keeni kadho, cidna waxuma qaban kadho. dhaaf dadka dhaaf. wax badan baanu ku soo celcelinay, wax badan baanu ku koolkoolinay. adeer gacal iyo nin dad maamuli kara matiida ka tag. dadka reer puntland waxaan leeyahay, haddii deni lacagtaa idinka qaado, maraakiib ajnabiya oo baan anugu lacagta ku kordhiyay, maraakiibta ajnabiga ayaa u kiraysan yihiin. sow dadka shacabka ma kiraysana. waxa kana saaraysaa sow dadka ma saara. cashuuratan saddex maatiga oo aad dadka ka doonayso, wallahi baan cidi ku siinayn, laakiin naftaada ku haysa. ka hortag dadka shacabka waxaan leeyahay, deni intaasaan leeyahay. deni inta xun buu wax ku yaqaan. haddaad waana u sheegto iyo haddaad si fiican ula hadasho dhegihiisa ma galaan. laakiin ninkii labshad la dhaca buu yaqaan. deni ama iska celiya ha barooranine, dekedaanu ga cararaynaa, dekedaanu ka tegaynaa, la dirin oo iska celiya adeer. kujahaada qoryihiina qaatoo la dirina. wallaahi kuwaa buurta jira oo lala dagaalamaya deni waxba kala duwaneyn. bb wall tan dekeda joogta oo dadka lacagta ka guranaysa oo ummaddaas suuxday maalin walba malaayiinka lacagta ku kordhinaysa. filis haddaa bixisaa yuhuud baa noqonaysa. wallahi meesha yuhuud iyo hoog iyo balaa iska rabsatay. ninka nasir baaba laga hayaa. carabna waxba ma oran karo. qoryihiinna qaatoo la dagaalama adeer. iska celiya. qofaa daacisha, qofaa lambar one cidi daacish hadday taha waa adiga. buurtii lala dagaalamaya ciidan ka soo rogtay. ciidankii baa bushaaradoodii waayey. ciidankii baa markaa qaylinaya. dagaalkii baa joojisay. meelaa wuxuu wado lama yaqaan. ciidan baa hadba gees tuuntuuminaysaa. xamar bay igu soo duushay. xasan waa la raacayaa. waxaa lagu raacayaa qaabkaa u shaqaynaysa adaa dadka ogolaysiinaya. reer puntland waxaan leeyahay, waari maysida waana kaa haro. adeer si gobanimaa u dirira. gaajo guri og, gobannimo dhereg gunnimo og iyo gobannimo gaajo og. gobannimo gaajo og qaata. waa suldaan xaqudiri wuxuu leeyahay waari maysida waana kaa haro. waa suldaanka ummadda soomaaliyeed. dadka isinkoodii baan ahay. waxa noocaasa ku daawan mayno. isimadii baa ka aamusan. ganacsatadii baa ka aamusan. dadka suuqa laga qaadqaadayo oo mayday deni ma kala jeclaa. deni inaga maaha. war deni inaga maaha. war deni dadka shacabka uma jeedo. war deni jeebkiisu 2 shilin buu yaqaan. dhagxiya oo qori qaato iska celiya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.